madaxweynaha wax khilaaf shakhsi oo naga dhexeeya asal ahaan ma jiro. hadduu qabiil iyo ka hadlana dee isagaa gedo sheegtay inay reerkoodu majority ka yihiin, inuu xaq u leeyahay inuu isagu maamusho. halka hadduu usoo dagaana dee ima muuqata ani dariiq uu Soomaali ku maamuli karayo. bale waxay shaki gelinaysaa xataa sii joogista iyo inuu xataa inuu issharaxay ceeb bay ku tahay maanta. sababtoo nin magaalo iyo gobol iyo dad qabiil ku sheeganayay, haddana qabiil baan fiiri inaad adigu qabiil sheegto tiraa dad baa wax sheegaya, adigiina aad wixii ka shaqaynayso. atamuruna naasa bilbir watansawna anfusakum wa antum tadruuna afalaa tacqiluun. qofku inuu wax ka hadlo wixiina isagu uu samaynayo. madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo maxaa gobolka Gedo kaga daatay? Gedo maxay kaga duwan tahay gobolada kale? maxaa sababaya? wax iskuma hayno. madaxweynuhu isagaa wuxuu dabcay inuu kuraas baarlamaan daraadeed uu yidhaha kuraastaas reebel bay kasoo jeedaa, waa inaan anagu maamulo. Jubbaland kama duwana isteydyada kale, maanta koonfur galbeedna kama duwana, puntlandna kama duwana, hirshabeellena kama duwana. maxaa keenaya in kuraas Gedo la geynayo qabiil lagu sheegto la yidhaha saasaa loo gelaya? waxaan isku haynaa ma jirto. laakiin madaxweynuhu wuxuu ku tumanayaa sharcigii, isagoo madaxleedkiisu joogo iyo intaasoo ciidan loo daabulay, intaasoo barakacay, intaasoo dhibaato la geystay. mana aha da qabiilku xataa hoos buu usii dhaadhacaya oo waxaa laga yaabaa inuu meel hoose sii gaadho. waana garan karin markaa wax Soomaali ku maamulayo, wax xataa kusii haweysanayo inuu maanta isharaxo iyo inuu dood siyaasadeed gala iyo inuu dad weliba inta hor istaaga ka hadlo yidhaahdo Soomaalinimaan raadinaya. Soomaalinimada la jilayaa maxaa lagu jilayaa? Jubbaland qodobaday la tegi doonto waxaa ugu horeeya wadankan doorasho inay ka dhacdo. doorashadu waqtiga ugu dhoweey ku sahlan ee ku dhici karta inay ku dhacdo. laba, wixii cabashadu ka jirtay la isku hayay in xal laga gaadho oo arrinta Gedo ay ka mid tahay. oo maanta Jubbaland waxay state dhisan oo la dhisay 2013 muddadaas soo jiray. xukuumaddan waqtigeedu dhammaaday, khaasatan madaxweynuhu wuxuu gaadhsiiyey wixii intaa lagu soo tacbayay ee laga soo shaqaynayay maanta inuu burburiyo. oo stateki maanta ad arkaysaa gobol dhani inuu macnaha uu maanta ku maqan yahay aadan garanaynin, in ciidamo lagu daabulay, in systemkii dowladnimada oo dhani ay ka halkaa burbur u ka yimi. muxuu yahay mowqifkaaga hadda arrinta gobolka Gedo? arrinta gobolka Gedo mowqifkeedu wax la barbaraya maaha. gobolka Gedo Jubbaland bay ka tirsan tahay. dastuur federaal iyo ku Jubbaland baa intuba qeexayaan. waa in lagu soo wareejiyo maamulkeeda gobolka Gedo Jubbaland. ma jiraa wax gorgortana oo aad ka gelayso arrinta gobolka Gedo oo Jubbaland in oo maxaan dee negotiation ka galaa? tusaale ahaan in wada xaajood wax lagu dhameeyo sida heshiiska Baydhabo oo kale oo dhigayay in Amisom Police la geeyo gobolka Gedo, Garbahareyna loo dhiso maamul cusub. maxaa loogu samayn? Jubbaland waa Jubbaland, dad Soomaaliya degan. Jubbaland bay ka tirsan tahay. waxaa hal cilad oo taala oo wax aada looga xumaada. madaxweynaha waqti xileedkiisu dhammaadee jamhuuriyaddu hadduu ka hadlayo Jubbaland iyo beel baa degta, see uu rabaa Soomaali kale inuu ku maamulo? ma beel buu ku sheeganaya? ma qabiil baa degan baa dhaqan looga hadli karaa? isna wax jira maaha. Jubbaland waa Jubbaland. haddaad tiraahdo tan waan la go-ayaa iyo oday dhaqankeen iyo beel baa ka hadlaysa iyo dagaal qabiil iyo abaabul qabiil lagu sameeyo, muxuu Muqdisho ku xukumaya? madaxweyne aan ku weydiiyey. ma laha ay sharci ogolaanayaa ma jiro. sidii lagu dhisayna waan garanaynaa iyo caqabadii aan kala soo kulanay. deegaano xor ahaabaa maanta shabaab tuulo ay maanta u joogaanay gacanta ku wada hayaan. diyaarad baana maalin walba ciidan loo waay. goormaan ka soo gudubnay diyaarado iyo hogaamiye kooxeedyo iyo ciidan qabiil loo abaabulo iyo Malaysia meel lagu daldalo. wadankan hadda nina xoog waxba kuma samayn karay. marka waan aad baan u qeexayaa barnaamijkaasi. madaxweynaha madaxleedkiisu dhammaaday maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo saaxiibkay xumaan uma qabo, waxba kuma waxaynay. laakiin ha u hogaansamo systemka shalay isagu uu ku yimid. ha ka baxo inuu gobol sheegto xamarna uu yidhaha waan maamulaya. wax dhacaya ma. haddii ay dhacdo in dad reer Gedo ah ay diidaan inaad doorashada kuraasta baarlamaanka maamusho ee gobolka Gedo, maxaad samaynaysaa?
dadka reer gadaa de horta hadday dad soomaaliyeed diidaan dowladda xukuumadda federaalka inay doorashada federaalka maamusho oo in la ku yeelata maxaa la sameyn shaksiyaadku moogtahay ma noqonayaan dadka ma matalaan shaksiyaad ma mateli karaan ma jiro wax shaksiyaad uu qofbaa hebel baa ka yidhi iyo ma noqon karayso madaxweyne waxaan ka hadlayaa dadka shacabka ah ee magaalooyinka gobolka gado degan hadday dowladdu faraha kala baxdo oo jabhadaha iyo ciidamada loo waxaynayo faraha loo qaado shacabka reer gada iyo mas-uuliyiintooda halkan joogaan iyagaa tegaya ciidan baa lagu muqooniyey ciidan baa lagu burburiyey ciidan baa loogu geystay ma jiro wax shacab reer gada la yidhaahdo oo barnaamijkaa ku jiray kuwa xamar maanta lagu duqeynaya lagu dhibaataynaya ciidanka lagu sameynaya askartii qaarkood shalay ka hor yimid intii la qaaday iyagoo meydkooda laga soo saaray qashin qubka waa shacab baa wax diiday baa laleeyahy la jiifyaano banaan moota meesha waa taale